waxa sanadihii u dambeeyay si weyn dunida uga soo kordhay dhoolatusyada dadku isku xujeynayaan dhexdooda ama la iskaga dayanayo iyadoo si weyn loogu soo bandhigay baraha bulshadu ku kulanto iyadoo waxyaabaha la isku xujeynaya ay kamid ahayd isku shubidda biyaha barafka inta ugu badan waxyaabaha dadka dhexdooda qaaday ee la isku xujeynayay dunidana sida weyn uga caan baxay waxa kamid ah jaaska ama qoobka ciyaarka Tom Tikasika ciyaartaasi oo noqotay mid muuqaalada dadyowga isku soo dul qabanaya ay gaadheen ku dhawaad kala bar dadyowga isticmaala baraha bulshada sidaas oo ay tahay waxaan maanta daawadayaal idin la wadaagayaa xog ku saabsan ciyaarta Tom Tikasika iyo sida ay ku heshay shacbiyada inta leeg dame tu cosita ay dame tu cosita dame tu cosita waxa ay ku bilaabantay ciyaarta Tom Tikasika inay si weyn oo marba marka ka dambaysa ay soo tarayso oo ugu dhafaafto barta musically oo ah mid kamid ah baraha adduunka loogu isticmaalka badan yahay iyadoo inta wixii ka dambeysay ay muuqaaladaasi u sii gudbeen bara kale oo ay kamid tahay yihiin Instagram iyo YouTube waxayna Tom Tikasika isku bedeshay ciyaar ka dhaxaysa dhammaan bulshooyinka caalamka taasoo la isku weydaaranaya dhanka internetka dhexdiisa waxayna ahaayeen dadka ugu badan ee ciyaartaas sameynaya kuwa soo barbardhiga kartoon ku ciyaaraya heesta Tom Tikasika haddaba daawada su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay halkay ka timi ciyaartan la yaab kale waxa 16 Oktoobar la soo bandhigay muuqaal yar oo kooban kaasoo ciyaar sameynayo kartoon cagaaran oo ku heesayay heesta Tom Tikasika heestaasi oo qaado fanaanka El Jumbo ee reer Spanish waxaana waqtiga barta YouTube lagu soo galiyay daawadayaal gaadhay 500 oo kun oo qof muddo 5 bilood gudaheeda waxa xaalku caanka iska bedelay markii shakhsi kale isla muuqaalkii hore uu soo galiyay bartiisa YouTube-ka labadii bishii 2018 isagoo ku daray siyaasadda ah inuu soo hareer dhigo muuqaal wiil sameynaya ciyaarta xayawaanka cagaaran oo kale iyadoo xilliga ku wada ciyaarayeen heesta Tom Tikasika waxaana daawadayaasha muuqaalkaasi xiisaha la gaadhay ilaa 13 milyan oo qof muddo bil gudaheeda marka laga joogay maalmo kooban kadib markii muuqaalka Tom Tikasika loo yeelay waji kale waxa iska soo daba dhacay dadka ku ciyaaraya heesta Tom Tikasika oo u jaasay qaabka kartoonkii cagaarnaa oo kale iyadoo xilliga xoog ugu faafay baraha Snapchat-ka iyo Musical.ly waxaana dadyoga fiidiyoga sameynaya ee iska faafinaya ka faa'iideystay wiil isaguna leh channel YouTube kaasoo isku geeyay muuqaaladii dadkan soo nagaliyay bartiisa waxaana muddo bil gudaheeda dadkaasi daawadayaal gaadhay 10 milyan oo daawaday haddaynu daawada eegno dhanka Soomaalida dhexdeeda waxa saameynta noocaas oo kala ku yeeshay heesta barbar iyadoo si weyn dhex qaaday umada Soomaalida waxa suuragal ah in ciyaartani kula muuqato mid aad si fudud u sameyn karto marka daawanayso laakiin waa mid aad u dhib badan inaad keento ciyaarteeda haddaba ma u malaynaysaa adigu daawada inaad ciyaartan sameyn karto iyo in kale